السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله runtii waxaa maanta nasiib wanaag aanu kulanay waa Cabdiweli Xasan Xaashi oo habeen dhaxdaana runtii igu yimi halkaan ka deganahay ama hoyga aan ka deganahay magaalada Muqdisho. waan wada hadalay inkastoo barnaamijka dad fara badan ay yiraahdeen waa mugdi codka waa si sawirka waa ayaa haddana waxaan doonay mar labaad ayaan barnaamijkan runtii aanu ku kulanay oo barnaamijka ugu horeeyay oo aniga iyo isaga aynu runtii ka qayb qaadanay. walaalayaal barnaamijka Cafis sidaad maqlayseen ba hadda wareysigii waa barnaamij qof walba looga baahan yahay qofna gooni uma laha. laakiin walaalkeen Weli Xaashi waa group ahaan dhalinyaro ayaa ma aragtay leeyo tacaawuno cala albirri baa la yiriyo wanaag isu kaalmayste koox gabdha ah wiilal ah ayuu runtii ururiyay sida ayaa barnaamijkii Cafis ay ku bilaabeen in badan waa gaarsiiyeen wadanka. anigu se waa masaajidada iyo ma aragtay hoolalkii ayaa runtii ka waday waxaana u waday waa si diini ah waxayguna waa muxaadarooyin waay ma aha barnaamij waa muxaadarooyin. laakiin dad baa waxay dooneen inay ka dhex faa'iideystaan aniga iyo walaalkay barnaamijkan Cafiska ee diiniga ah cibaadada ah inay ka dhex faa'iideystaan oo ay barnaamijka naga maaragtay niyad jabiyaan ayay dooneen. laakiin alxamdulillah hadalka isaga ee aadka u fiday isagana waa lagu yiri anigana waa la soo gaarsiiyay laakiin labadeeniba waxba kama soo qaadin maxaa yeelay shayaadiinul insi baa jira doonaya qulubta inay kala geeyaan. runtii ilaahayna haddii arrinkan oo kale uu yimaado oo shayaadiinul insi dad wanaag wada ay doonaan inay hor istaagaan waxaa la yiri qaacido inay sii ilaahay qaacidadana inay ila wadaagtaan aan doonayaa. qof walbo wanaag wada qof walbo maaragtay horumar raba qof walbo de wax wanaagsan umada u qabanaya ama nafsadiisa iyo reerkiisa u qabanaya haddii shayaadiinul insi ay isku dayaan inay niyad jabiyaan oo ay warar keenaan tashwiish ku furaan waxa ilaahay leeyahay fatabayanu war hubsada hubsada oo xataa haddaad aragtaan in uu shayaadiinul insi dadka soo dhex galeen see loola falgalayaa see loogu jawaabayaa سلاما إلهي بعدها وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما دك هؤلاء رعيننا مركع عفش كأنك أورينا أنك نفذنا وليو وحول بوحنا اللي بيسوق جالسين كنتي واحد كما صنتها إن عديستي أو فتبينوا أو أترنتي إيتمت أو أدي وريستي قاعدة سينفونا غنوا وانكو عفي وما ظهرت هذا وانكو عفي أدونا ما يعافسي. أنا ولا بقى عفي شيخ سيدي أنا عافس كما دارت أنا وده وأنا جه هالكان ورئيسي كل شيء جيني وأنا نقول له بسنة ده كمان تسكتي أنا وحكي لافان إن أنا عندك تاقصين أو شقة أنا وضنا وشقة واجبة ودينية أنا مركز شيء بقى فرح سنة هاي أنا جا شكي قبل قال هالمرنا واحد استول إيش إلا هو حب صدام ده أنا وإنده وبأركم ما قعدته مركا حدي عن سكوت إن أنا عندي سنة وركوده وحوي وحين والله اللومس مركي يسلم الشيخ ولبا هو عديستي فتبينوا وحكوا حاجة حتى مركز عديستي حداد ولالك كو أركتد وحي لو شيغايي حميده اها حداد كو أركتد أنه waxaan ku sii raacinayaa waliba cudurdaar u sii sameey u sii cudurdaar ha ku qaadan xumaantii ha ka fogaanin waxaynu doonaynaa waa inaynu qalbiga isu keenno warka marka hore hubsada haddii sidii loo maleynay uu ku soo baxa cudurdaar hal ma aha laba ma aha 70 jeer walaalaha ha loo cudurdaaro inuu asbaabteeda leeyahay laga yaabaa. aad baan idin salaamayaa aynu ummad culus noqono Soomaali ummad culus aynu noqono aniga walaalkay wad aragtaan dhexdeena wallahi dhexdeena wad arkaysaane danihiina ka fulimayaan waa iscafinay qalbiyadeena oo saamayn meel kale aad ka raadsanaysan wixiina Allah